waxaan ku suganahay hadda saacadan dayactirkii jidka wadnaha gaalkacyo laamigii dayactirku ku socday sida aad u joogtaan waxaa la dhigayaa qayb kale oo laamigii ka mid ah shaqadii socotay baryahanba waa u jeedaan laamiga la dhigayo iyo quality-giisa laami qurux badan oo casri ah oo qalabkan ka shaqaynaya ayna runtii hore u isticmaalin dadkuna ay indhahoodu macallin ugu tahay sida ay wax loo dhigayo sida shaqadu u socoto dhammaan dadkii bulshadu ay ku wada qanacsan yihiin waxaanu bulshada ugu baaqaynaa reer gaalkacyood gobolka mudug reer gaalkacyo ahaan iyo ummadda Soomaaliyeed oo ka wada faa'iideysta jidkani waa jid weyn oo muhiim ah oo ummadda Soomaaliyeed u ah xudun runtii isku xirta gobolada waqooyi bari iyo koonfurta Soomaaliya intaba Soomaaliya dhan jid isku xiraya waa jid halbowle ah waa jid aan ummadda Soomaaliyeed ka wada faa'iideysato waxaan ugu baaqaynaa inay jidka dayactirkiisa ka soo wada qayb qaataan cid walba oo aragta ama la socota ama xaaladihiisa ogba in ay ku bixiyaan jidkani waa burbursan yahay muddo badan runtii dayac badan baa ka muuqday waxay ummaddu diyaar u tahay in dadka degan magaalada Gaalkacyo inay hagaajiyaan wax ka qayb qaataan ummadana waxaan ugu baaqaynaa inay ka wada qayb qaataan gaar ahaan dadka bulshada Gaalkacyo ku nool waxaan leeyahay jidkii idinka u jeeda idinka la degan idinka magaaladiina u dhex maraya iyo bilicdeeda uu saxaya inaad ka wada qayb qaadataan dayactirkiisa dhaqaalaha aad ku bixisaan cid walba iyo qof walba oo inaga mid yahay wuxuu awoodo inuu kula baxo waa sadaqa jaariya waa magaaladiini waa masaalixdiini waa umurihii danta guud ee ummadda ka dhaxaysa runtii waxaan u jeedaa shaqada hadda saacada socota waad aragtaan laamiga quruxdiisa iyo inta socota iyo inta la rabo in la gaarsiiyo inta inoo diyaarsan intaba aad iyo aad baan idinku boorinayaa arrinta inaanu ka wada qayb qaadanno waxaa halkan gadaashay ka muuqda arkaysaan waa dhismaha 300 oo feeska labaad 300 oo mitir ee jidka weyna wadnaha ee Gaalkacyo insha Allah taala waxa aragtaan shaqada sida habsamida ay u socoto waxaan isku dayeynaa inaan dhamayno feeska labaad oo 300 oo mitir insha Allah taala waxaan baaq u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland gaar ahaan reer Mudug waxaan leeyahay walaalayaal wadada arkaysaan muddo 40 sano ma aysan helin daryeel waxa Ilaahay u kacshay ummad Soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanayaa inay ka qayb qaataan waa sadaqa jaariya waa meelihii loogu talagalay in lagu baxsho sadaqada waxaan leeyahay ka soo qayb qaata ku contribute gareeyo jidka wadnaha Gaalkacyo qof walba ha ka qayb qaato ha uga qayb qaato af iyo adin iyo dhaqaale iyo maskaxba uga qayb qaato qofkan waxa uu awoodin waa inuu advocacy u noqdo ama qareen u noqdo oo u raadiyaa wixii ku dhismi karto qofkii dhaqaale u awoodo waxaan leeyahay walaalayaal ku soo darsada khayrka iyo sadaqada ku soo darsada insha Allah taala waxaan naga go'an inaan ummadda iyo dalka u shaqeyno waxaan naga go'an inay wadada dhamaato hankaygu ma aha kaliya inaan Gaalkacyo gaarsiino laakiin waxaan ku hamin weynahay ilaa iyo garow inaan ku gaarsiino oo aan ku xirno waxaan rabnaa inaan dadaal la harin haba yaraatee waxaan rabnaa gobolka Ishaaq Soomaaliya oo dhan hadda waxaanu ka shaqeynaynaa mudug Gaalkacyo meel walba waxaan rabnaa inaan si wanaagsan oo laga taxadiray oo aad looga fakiray inaan uga shaqeyno oo hagar la'aan ah oo dadaal intii la doonaa Ilaahay idinkiis kibaarka waxay ku tala gashay inay mar walba u hiliso ummadda Soomaaliyeed marka insha Allah taala waxaan maleynaynaa Ilaahay idinkuna dhinacii nagala qabataan gacmo wada jir bay wax ku wada gooyaan dadaalkeennuna insha Allah wuxuu noqonayaa mid aad u horsareeya haddii Ilaahay idmo waxaan ayaanu booliska gobolka ahay waa ku faraxsanahay laagan la sameeyo iyo kabariga sameeynaya hadaan booliska lahayna waa la shaqeynaynaa waa soo dhaweynaynaa waa ku faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay waa la shaqeynaynaa inta qabanaysana waa ku mahadsan yihiin kabariga iyo wixii caawinaya iyo wixii u hawlgalaya inta aad baan ugu faraxsanahay annaguna waa la shaqeynaynaa waa soo dhaweynaynaa